moogtahay muwaadin in goobaha aasaasiga ah ee danta guud sida goobaha waxbarasho caafimaad iyo xafiisyada dawladdu ay yihiin goobo dan guud ah oo la wada leeyahay isla markaana ay shacabka wakiil uga tahay xukuumadda hadba talada haysa xukuumadda haatan ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo intii aanay talada dalka la wareegin aragti nooceeya ayay ka qabtay dhulka danta guud waan isi doonaa maamulka yare oo u adeega horumarka dalka iyo waxqabadka bulshada oo aan ku mashquulin sida maamulka maanta jira lacag urursi goobka hantida ummada sida iibka iskuullada hantida maguurtada ee dowladda sida maxjarada iyo la dagaalanka mucaaradka iyo isku dirka beelaha hadda oo xukuumadda Axmed Siilaanyo gabagaba ku dhowdahay waa sidee xaaladda dhulka danta guud marka koowaad waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan wax la qarsanayo aanay ahayn ay tahay xaq dastuuri ah cid xaq u leh dhulka maamulkeeda haddii ay ahaanayso in loo kaydiyo qaranka loo kaydiyo haddii ay noqonayso resource dalka ka mid tahay in la iibiyo haddii ay noqonayso cid ku habboon in la siiyo la hibeeyo cidda awoodda iyo mandate iska leh وحكومة حلك هيسا من برنامج كاتشو إسكتاجر وحبها حلكي صورة مع مركز ورئيس كان إسلاق عظم برنامج كنا نحوق يحقق وأنا قلت لقلني إن أنا كل فكرنا سيدا حكومة مدحويني أحمد سيلاي وما مشي دول كيدن تكود شعبك وضلها وقاركود وقع عن كلام قناع ستة يحبنا حكومة كتر سنة wuxuu yahay dareenka bulshada Somaliland ee ku aadan dhulkan danta guud dhulkaynu hayl oo dhan 200 qof baa qaatay dhulkii Hargeysa subhanallah 1.3 milyan baa Hargeysa ku nool baloorkii waxa yidhi waliba markii ay qaateen baa waxay nagu yiraahdeen baloorku waa $60 subhanallah mari laundry dunida waxa jira wax loo yaqaano qasiilun nuqud لما باجر أو فكرة لعقت ضدك كده حيس ماني لاندري يروح الصبية سفوين بضبط لعقت الله صبي دول كي وبدأ يقاتل الحمد لله إنه صوت عقب يكون الشرطين ما حاك صدرا وحي نوح هذين دول كي أي الله بضع كوني يصدق هذا كوني أفر تكوني نكوي لهين أي برايس وسمين إلا واحد حسابات بقرتي يويسوقي واحد هذا اللي حدا كله $1 ويبلغ سبحان الله meelihii biyaha lahaa meelihii leerka yar soo gaadhay meelihii noloshu ka suurta galisay oo dhan inta dhulkii wada qaateen subhanallah hadii lagaaga warramo dadka qaar kood oo maalintii Hargeysa aynu soo galnay isaga iska daa aabihii awowgii ayaan mitir ku lahayn Hargeysa maxay naga dhaxeeyay dhulka maxay naga dhaxeeyay beelaha xooluhu daaqaya macallimiintii voluntary-ga ahayd kuwii waxbarashada ee dugsiga joogay dhangad baana lagaga soo saaray xaqna uma lihidin baa la yiri taasi waxayna tuurisaysaa imma xayaatu tasurru sadiqi wa imma mamaatu yaqiidu al-ida warama dadkani waxay dhimanayaan dhimasho cadawga ka cadhaysiisa ama waxay noolaanayaan nolol saaxiibkood farxad galisa joogeen waxaanay ahayd meel haweenka Soomaaliyeed Ingiriiska u dhisay ayay ahayd way wax ku baranayeen iyagana dadkana wax ku barayeen goob taalimeed bay ahayd saaka waxa dhacday weerar baa la soo qaaday maalmahan bal la waday bacad saar baa laga dhigay wixii halka joogay dadka ahaa haday haweenkii yihiin iyo haday dad kale oo masaakiin ahaa oo meesha ku jiray ay ahaayeen dirkaba waa la burburiyo cagta la mariyay kaga bogo barnaamijkeenan xog iyo xaqiiq xogo iftiiminaya tirada dhulka ah ee ay xukuumaddu iibisay ganacsatada laga iibiyay iyo shakhsiyaadka kaleba أدي لبوه عامله وما
I